Soomaaliya waxaa la dooranayaa golo shacab oo cusub waana hay'adda u xilsaaran sharci dejinta iyo qaabaynta mustaqbalka horumarineed ee dalka. Waxaa la isla meeldhigay tallaabooyin lagu xaqiijinayo in codaynta ay u dhacdo si la aamini karo oo sharci ah. Hannaanka doorashada sidan ayuu u shaqayn doonaa. Gudaha xarunta codbixinta waxaa fadhiisan kara oo keli ah ergada oo ah dadka qabaa'ilka ay u xusheen in ay wax u doortaan. Waxa ay isla fadhiisan doonaan ergooyinka kale oo iyaguna codadkooda u dhiibanaya si xor ah. Halkani waa goobta codbixinta. Keliya howlwadeennada goobaha codbixinta iyo ergada ayaa loo oggol yahay inay galaan goobaha codbixinta. Isla goobta codbixinta waxaa fadhiya wakiilada musharaxiinta, goobjoogayaal caalami ah iyo saxafiyiin oo ay shaqadoodu tahay in ay kormeeraan lana socdaan doorashada. Madaxa xarunta codbixinta ayaa markiiba u yeeri doona magaca ergey kasta. Ergeyga waa in uu tusiyaa kaarkiisa aqoonsiga madaxa xarunta codbixinta. Ergada waxa ay saxiixi doonaan liiska magacyada ku qoran yahay. Warqadda codbixinta iyadoo shaabadaysan iskuna xiran ayaa la siinayaa ergeyga. Codku waa uu halaabayaa haddii warqadda codbixinta aysan shaabadaysnayn. Ergeyga intaa kadib warqadda waxa uu la tegayaa goobta codbixinta ee ugu dhow ee firaaqada ah. Waa mamnuuc in sawir lagu dhex qaado goobta codbixinta. Codka waa qarsoodi, cidna ma ogaan karto qofka aad u codaysay. Ergadu waxa ay u codayn doonaan si ay ku dheehan tahay rabitaankooda. Ma jiri doonto aargudasho ama cambaarayn, sababta oo ah qofna ma ogaan karo qofka aad codkaada siisay. Waxaa la isla meeldhigay nidaam lagu ilaalinayo sharciyada iyo kalsoonida tirinta codadka. Marka la xaqiijiyo in sanduuqa codbixinta la dhammeeyo, sanduuqa waa la xiri doonaa waxaana lagu dhejin doonaa caag ay ku qoran tahay tiro ama nambaro qaas ah. Inta ay socoto tirinta codadka waxaa jiri doona koox kormeerayaal ah lana soconaya tirinta codadka. Dadkan looma oggolaan doono in ay tagaan goobta codadka lagu tirinayo si aan loo faragelin hannaanka doorashada. Keliya howlwadeennada xarunta codbixintaas ayaa furi doona sanduuqa, kadibna iyaga ayaa tirin doona codadka. Inta ay socoto hannaanka doorashada, guddiga madaxa bannaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa diyaar u ah inay qabtaan cabashooyinka ku saabsan hannaanka doorashada. Kooxdan waxa ay ka kooban tahay 25 khuburo dhinaca sharciga ah, kuwaas oo diyaar u ah sugayana inay dhegaystaan cabashooyinka ku saabsan hannaanka doorashada. Musharaxiinta waa ay soo gudbin karaan cabashooyinka ku saabsan musuqmaasuqa, cabsigelinta, cod iibsashada, carqaladaynta hannaanka doorashada, wax isdabamarinta, ama in wax la isdabamariyo xilliga ku dhawaaqista natiijada doorashada. Si guddiga madaxa bannaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinka u eegaan cabashadaada, fadlan bixi lacag $1,000 ah. Musharaxiinta waxa ay soo wici karaan lambarada ku qoran shaashadda haddii ay qabaan cabashooyin. Dhab ahaantii, tani waa waqti muhiim u ah taariikhda Soomaaliya.